السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا وناكسن داوديال qodobada aad barnaamijka ku daawad doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay dagaalada lagu hoobtay wali ka soconaya gobolka Tigreega iyo maleeshiyaadka Khalifa Haftar oo afduubtay markab ay leedahay dawladda Turkiga iyo madaxweyne Erdogan oo midowga Yurub uu baaqay inaan la adeegsan sidii xoolihii xilligii la doono iyo dawladda Suudaan oo gudaha Itoobiya ku gubtay gaadiid iyo hanti ay lahaayeen dad Itoobiyaan ah. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka daawadayaal waxaan la socodsiinaya anigoo qoojo ah fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro like taaba siina share garay si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahino haddii aad horey noola joogtana waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga mahadsanid aynu ku horeyno dagaalka ka socda gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya ayaa saddexdii maalin ugu dambeysay waxa uu ahay mid la isku hoobtay oo waxba la isku harin ciidamada cirka Itoobiya ayaa doqon culus ka wada magaalooyinka ay gacanta ku hayaan jabhadda TPLF diyaaradaha droniska iyo kuwa miiga ayaa si aan kala joogsi lahayn u garaacaya sidoo kale xoogga TPLF ayaa ayaguna bilaabay weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah iyo gantaalo lala beegsanayo meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda dhexe ee Itoobiya iyo xulafadooda qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray ayaa ah mid tirabeel ah midadka ayaa banaanka daadsan wadooyinka magaalooyinka lagu dirirayo labada dhinac mid walba kamidana waxa uu waayay jaanis oo ku aasto midadkiisa qaramada midoobid ayaa ka dayrisay galitaanka gobolka Tigreega maadaama dagaal culus wali ay ka soconayaan qaramada midoobay ayaa rabtay inay gargaar caawinaad gaarsiiso dadka shacabka ah ee dagaalku aafeeyay isniintii ayaana laba xubnood oo kamid ah guddiga gargaarka degdegga ah ee qaramada midoobay lagu dilay gudaha gobolka Tigreega dawladda ayaana horay u sheegtay inay soo afjartay waxa ayna tiri wayna soo afjarnay jabhadii waxaana noo dhiman inaan madaxdoodii sharciga horkeenno wayna horkeeni doonaa oo buuraha ayaan ku baacsanaynaa lama oga sida uu xaqiiq ku noqon doono hadalka dawladda waayo qaramada midoobay oo gargaar u waday hadda wax gargaar waa ay gaarsiin weysay cabsi ay ka qabto dagaalada meesha ka socda sidoo kale militariga wadanka Suudaan ayaa gudaha u galay 40 kilomitir gudaha wadanka Itoobiya waxayna burburiyeen oo ay gubeen gaadiid iyo hanti dadweyne sida ay ku waramayaan dadka Itoobiyaanka ah dawladda Suudaan ayaan xalay idinkaga waranay in ay horay u soo ceshatay qaybo badan oo kamid ah dhul lagu muransanay oo horay uga habsatay dawladda Itoobiya Suudaan ayaana carcarteeda laga dareemayaa gudaha wadanka Itoobiya Suudaan ayaana madaxa kor u soo qaadaysa maadaama 25 sano ugu dambeysay ay madaxa hoos u laalaadinaysay oo Itoobiya waxa ay rabto ay ka sameysanaysay dadka falanqeeya siyaasadda Afrika ayaa arintan ku micneeyay in ay Suudaan gadaal ka soo riixayso dawladda Masar sidoo kale gobolka Oromiya ee wadanka Itoobiya waxa ka dhacay xasuuq wadareed loo geystay qoomiyadda Amxaarada xasuuqaas oo la sheegay in ay ku dhinteen ilaa 14 ruux oo ka tirsan qoomiyadda Amxaarada kuwaas oo si arxan darro ah loo gowracay Amxaaradu waa ay dhibtoonaysaa waayo meelo badan ayay diruur uga furan tahay gobolka Oromiya gobolka Tigreega kuwi Benshangul Gumus meel walba waa lagu leynayaa waa lagu ugaarsanayaa suxufiyiinta Amxaaradu waxa ay leeyihiin waxa meel walba shacabkeena loogu ugaarsanayo waxa ay noo quuri laayihiin sareynta aan ka sareyno dadka kale markan ay u galno wadanka Liibiya wararka ka soo baxaya ciidamada Haftar ee Liibiya ayaa qabsaday markab ganacsi oo leeyahay Turkigu kaas oo la sheegay inuu daawooyin u waday takada Misrata afayaan u hadlay Haftar Ahmed Masmari ayaa sheegay sidan markabku waxa uu soo galay goob mamnuuc ahayd ama xayirneed waan u dhawaaqnay in badan mana istaagin sida darteed waxaan u dhaweynay doomaheeni waan u daadanay wuxuuna waday markabku daawooyin mana uusan qaadin dariiqii waajibka ahayd inuu qaado ama uu raaco shirkadda lahayd markabka ayaa la hadashay kabtankii markabkaasi waxa uu sheegay inay fiican yihiin markabka ayaana ku socday calanka wadanka Jarmalka laakiin waxa lahaay nin Turki ah waxaana saarnay 9 nin oo Turki ah iyo 7 nin oo Hindi ah iyo hal Azerbaijan ah lama oga sida ay uga jawaabi doonto dawladda Turkiga arrinkaani dawladda Turkiga iyo Haftar waxa ka dhaxeeyay dagaal qaatay dhowr bilood oo looga soo saaray Khalifa Haftar magaalada Tripoli laga keenay magaalada Sirta dawladda Turkiga ayaa dawladda la aqoonsan yahay Liibiya ka taageerta dhinacyo badan waynu wada ogeyn sida diyaaradaha Turkidu ee Benakhtarka ay u baacsadeen maleeshiyaadka Khalifa Haftar ilaa Tripoli ilaa iyo Sirta madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo hadlay ayaa yiri waa inay midowga Yurub in dhalaidan ay ku socdaan sida ugu degdegta badan u joojiyaan waana inaysan ogolaan in sidii xoolihii xilligii la doono la adeegsado annaka bariga dhexe amnigeeda ayaan ka shaqaynaynaa ee halis kuma nihin amniga sidoo kale xaqooda ma rabno iyagana cid aan ka baryayna ma jirto
madaxweyne Erdogan ayaa midowga Yurub eedeymo badan u jeediyay sidoo kalena munaafiqnimada ay ku dhaqmayaan cambaareeyay asagoona intaasi raaciyay in aan Turkiga baqdin aysan ku jirin xitaa inaysan ku jirin markastana ay diyaar u yihiin sida ay u difaacan lahaayeen wadankooda buluuga ah iyo badda Turkiga sidoo kale diyaaradda TFX waa diyaaradda jiilka shanaad ee Turkigu gacanta ku hayo waxaana farsameynaya shirkadaha Turkida waxaana ka qayb qaadanaya farsameynteeda 500 oo khubaro heer caalami ah oo Turki ah diyaaradani waxay aad ugu awood badnaan doontaa orod iyo horumarba diyaaradda Mareykanka ee F-35 shirkadaha gacanta ku haya diyaaradan ayaa sheegtay in ay 2023 marka ugu horeysa ay hawada gali doonto waxaana lagu bilaabi doonaa tijaabooyinka 2025 dadka ka shaqeynaya diyaaradan horumarinteeda 24 saac ee maalinkii ma joojin doonaan shaqada TFX waana mucjiso ku soo biiri doonta caalamka hubka sida ay sheegayaan khubarada adduunku orodkeedu waa ilma qabateen qaadi karta gantaalada nuclearka raadeeradana mustaqbalka soo bixi doona xitaa looga sii sameyn doono difaaci awood ugu yeelan doonto inay ka dhuumato waana mashruuca ugu weyn ee dhanka difaaca ee dawladda Turkigu hadda gacanta ku hayso taasoo marka la gaaro 2025 Turkigu uu noqon doono mid aan hadalkiisa iyo rabitaankiisa cid ka hor joogsan karta aysan jirin sidoo kale shirkad yar oo Turki ah ayaa malaayiin dollar ka sameysay lugaha digaagadda ayadoona u iibgeysay Shiinaha sanadkaani waxay ka faa'iiday 25 milyan oo dollar shacabka Shiinaha waa shacab cuna wixii dhaqaaqaba lugaha digaagaduna waa kuwa ay ugu jecel yihiin hadda lugaha digaagadda marka lagu leeyahay waa cijiyaha digaagadda shirkaddan Turkiga ah markii ay aragtay lugaha digaagadda oo gudaha Turkiga la gubayo oo qashinka lagu darayo iyo baahida ballaaran ee Shiinuhu u qabo ayay bilowday in ay ka faa'iideysato oo ay u iibgeyso Shiinaha shaqa way jirtaa fikir bay rabtaa ayaa halku dhig looga dhigay sheekadan sidoo kale gaadiidkii aynu xalay in la wadaagnay sawiraantooda oo ay dawladda Itoobiya ku sheegtay inay ahaayeen gaadiidkii saraakiishii sarsare ee madaxda TPLF qayb kamid ah sawir ay dawladdu sare faafisay ayna ku sheegtay inay yihiin baabuur ay ka qabsatay madaxda sare ee TPLF ayna ka carareen saraakiishii ugu sarsareysay ee TPLF ayaa warbaahintu caalamku soo heshay inay been abuur yihiin sawiraantaasna la qaaday 2019 lana soo dhigay beejka rasmiga ee wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waana kuwan sawiraanta ay soo dhigtay wakaaladda wararka ee Sona 2019 ma ahan markii ugu horeysay ee sawir ay dawladdu faafisay kuna sheegtay dagaalada ka socda waqooyiga gobolka Tigreega ee Itoobiya ay noqdaan sawir bari hore la qaaday intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena fi amaanillah wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh